cabdirashiid maxamed siciid ducaale bal kusoo dhowow laanta afka soomaaliga idaacadda VOA-da ee qaybteeda TV-ga magaalada tan Washington ayaad joogtay dhowrkii cishe lasoo dhaafay kulamo ay wadeen ayaa jira IMF-ta iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo sidoo kale World Bank-iga bal waxaad ka warantaa marka kulamadaasi miyaad qayb ka ahayd iyo shirarka halkan ka socday waad mahadsantahay Sahara inaad igu soo dhaweyseen stuudiyihiina ku yaala Washington DC sidaad u sheegtay shirar badan oo World Bank iyo International Community-guba ay wadeen baa jira oo ku saabsan ganacsiga Soomaalida ama lacagahan remittance-ka ama lacagahan dadka Soomaalidu ay diraan anigu shakhsiyan dawladda Mareykanka waan la kulmay waxyaha kala duwan ee xiiseeya lacagta loo diro Soomaalida sida Treasury-ga iyo White House-kaba labaduba waxa ka muuqday inay jecel yihiin inay Soomaalidu ay lacagtooda si toos ay u diraan sidaad la socotay weli Mareykan Soomaalidu lacagta way ka diraan inkastoo aad ogtahay culeysyada jira guud ahaan marka shirar noocaas waan ka qayb qaatay aad baan ugu faraxsanahay inay dawladda Mareykanku ay aad u xiiseynayso in Soomaalidu ay iscaawiyaan oo ay lacagtoodii aanay waxba istaagin si toos u socoto waxaa jira xayiraad la saaray ee lacagta Soomaalida halkan laga diray ama Soomaaliya loo diray ama deegaanada kale ku dhow sida xiriyaha qaxootiyada ee Dadaab shirkadaha xawlaadaha lacagtooda way joogsato gudaha Mareykanka inta badan dadaal ayaa socda halkee wax idin marayaan haatan runtii walaal xayiraadda la maqlay waa mid xagga bangiyada ah ma aha xayiraad xagga sharciga ah weli dahabshiil lacagta uu ka diraa Mareykan shirkado kale runtii Soomaalida weli lacagta diraana way jiraan marka xagga Mareykanka shirkadaha Soomaalidu lacagta way ka diraan sharciga way ka haystaan on cilada ka jirta Mareykan waa laga yaabaa inay tahay xagga bangiyada oo laga yaabo inaan shirkad waliba bangi wada haysanin laakiin xayiraadii Mareykanka ma jirto waa gartay sidaas oo tahay haddana waxaa jirta in lacagtii xaddiga awal qof walbaba intuu doono uu dirsan karay inuusan Mareykanka haatan ka diri karin oo shirkadaha sidii hore qaarkood waxa ay sameeyaanba lacagaha oo lagu qoro warqadaha loo yaqaan money order-ka oo kale lacagta cadaanka ahayd oo la qaadi jira shirkadaha qaarkood ma qaadaan qaar wayba xirmeenba oo waxay yiraahdaan meelaha qaarkood waxba ma diri karno marka taasi waxaad leedahay culays naguma aha oo isbedel maaha runtii waxa dahabshiil baan u hadlayaa dahabshiil weli lacagta uu ka dira Virginia inuu joogna caad baa lacagta looga diraya Columbus Ohio waa laga diraya Minnesota waa laga diraya marka dahabshiil shaqadiisii Mareykanku way socotaa waa si jirta in shirkado kale oo Soomaalida ay ama ay limit saareen lacagta ay dirayaan ama gobolada ay ka dirayaan ay yareeyeen oo ay gobollo kaliya oo culays ka saareen marka Mareykan weli lacagta waa laga diraa dawladda Mareykanna lacagta weli way ogoshahay in la diro si sharci ah maxaa yeelay haddii wada sharci la waayo waad ka fahmi kartaa dhibaatada dhacaysa lacagta underground bay galaysaa suuq madow bay galaysaa humanitarian dad baahan oo ku noolaa bay saameynaysaa siyaasadda guud ee Mareykanka ay saameynaysaa maxaa yeelay Soomaalidu inay wax istaraan oo horumarkooda ay soo noqoto dawladda Mareykanka way xiiseynaysaa marka laakiin mushkiladdu waa bangiyada oo ka baqaya in iyaga la ganaaxo waad ka socotaa inta bangiyo badan baa adduunka la ganaaxaya qaar ama South America ahaadeen ama Iran la xiriireen ama meelo kale la xiriireen marka iyagoo cabsida qaba guud ayuunba Soomaaliyana ay soo gashay sheekada waxaa jira xayiraad la saaray howlihii xawlaadaha ee Kenya oo dhan waqooyi bari Kenya kamida oo goobaha dadka sida weyn ay ugu noolaayeen lacagaha dibadaha laga diro qoysaskooda meelaha ay ka biilayeen marka ma jiraan dadaal haatan aad doonaysaan inaad bal dawladda Kenya wax uga dhaadhicisaan ama si kale aad ku furi kartaan ama dib ugu soo celin kartaan howlihii adeegii xawlaadaha Kenya waa nasiib daro qaraxii ka dhacay dhibaatadii ka dhacay Gaarisa ee dadka masaakiinta ay ku dhinteen in ganacsatadii Soomaalida oo dhan aan waxba loo kala reebin list la geliyay magacii Soomaalida oo dhan waliba waxa la geliyay kuwa sharciga haystay in la yiraahdo yaa sharci haysto la geliyo waa nasiib daro jirta taa dawladda Kenya waanu kala xiriirnay rajo weyn waa ka qabnaa saad la socotay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya laftiisu kulankii uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Kenya arrimaha uu kala hadlay ka mid ahay taas iyo qaxoontiga marka dawladda Kenya go'aankii qaadatay waan fahmayaa dhibaatada dhacday Gaarisa ka dhacday cidina taa ku farxi mayso waa nasiib daro dad masaakiina oo dhalinyaro oo wax baranaya inay dhintaan laakiin isla markaana go'aanka kale dawladda Kenya qaadanaysa iyada lafteedu waxa weeyaan masaakiin kale oo masaariiftoodii helayay ama shirkado ganacsi oo adduunka oo dhan ka shaqeeya in magaca Soomaaliyeed la yiraahdo magaca Soomaaliyeed uma liiska ay raacino iyagoo aan wax dambiya lagu helin maxkamad la saarin dambigoodii
la baadhin waad ogtahay inay nasiib darro tahay waana ku rajo weynahay in dowladda kenya markay dib u eegaan go-aankoodii inay shirkadaha qaar ka saari doonaan liiskaas xayiraadaha meelaha qaarkood iyo tuhumada haatan soo baxaya shirkadaha xawlaadaha dhammaan laga qabo ka hor intaysa dhicin ma jirtay waxaad uga hortegi karteen ama isku xirnaan adinka dhexdiina ah si dhibaatadan haatan taaganaysa u imaan arrinta kenya ka dhacday waxay sal ku lahayd gaarisa wixii ka dhacay dowladda kenya shirkadahaanu ka midka nahay way laysan bay siiyeen ay ku shaqeeyaan way udhid garayn jireen oo waraaqo ah inay udhidkoodii ay ka baxeen 3 bilood ka hor dahabshiil kenya central bank wuu udhid gareeyey wuxuu yidhi shaqadiina habi baan ku nahay arrinta walaal kenya ka dhacday qaraxa kenya ka dhacay ee aada og tahay ayuunbay la xidhiidhaa waan fahmayo emotionalkeeda iyo saameynta dadka kenya ku leedahay marka qasab waa shirkado soomaaliyeed meelaha qaar isku danka ah meelaha qaar ka wada tartama markii kenya qaraxu go-aankan kenya uu soo dhacay way isu tageen urur soomaalida keliya maahe ay shirkado kaloo kenya ay leeyihiin baa u hadlayey dhibaatadu way isu keentay laakiin waa la odhan karaa inay aada u sii wada shaqeeyaan maxaa yeelay magaca soomaaliyeed meelaad joogtad buu ku saameynaya marka inay ganacsatada soomaaliyeed ay gaar u wada shaqeeyaan mar walba annaga waanu dhiirigelinaynaa waa tahay cabdirashiid dhinaca kale haddaan bal ku weydiiyo saameynta xiristan la xiray shirkadaha xawlaadaha ee dalka kenya saameyn intee la-eg ay ku reebtay dadkii ku xirnaa ama noloshooda ay ku xirneed lacagaha laga diro qurbaha walaal waxa weeyaan marka ugu horeysa kenya dalka kenya waa dal muhiima weeyaan soomaalida u ah muhiim waxaa jooga dhammaan soomaalidii ka yimi soomaaliya waxaa jooga soomaalidii kenya u dhalatay kenyaanka iyo dadka kenyaanka laftoodaba dhammaantoodba shirkadaha ay dahabshiiliya ka mid yihiin way isticmaalaan waxaa kaloo jooga hay-adaha n g o yada loo yaqaano ama humanitarianka ee degan kenya iyaguna caawinaya soomaaliya dhammaan shirkadahaasu si toosan iyo si dadbanba shirkadaha soomaalida ee lacagaha dira way isticmaalaan qasab go-aanka kenya wuu saameeyey arrintaas sidaan hore kugu sheegay wadamada kale caadi bay shaqadeeda uga wada socotaa oo ay lacagta looga diraya waa kenya oo keliya taasan doonayaan ku celceliyo si aanay dadkeena dhegeysanaya ama ina daawanaya ay u ogaadaan dhibaatadani waa mid ku kooban kenya oo keliya ee aan wadamada kale aan gaadhsiisanayn waa tahay haddiiba kaba soo qaad dowladda kenya ay ku adkeysato inay ka noqon weydo go-aankeeda maxaa idin qorshaysan oo meel idin yaala runtii waxaan ku rajooweynay dowladda kenya inay ku noqoto maxaa yeelay dhammaan ganacsatadii soomaalida oo dhan liis baa la gelinayaa ma aha si cadaalad oo aan wax dembiya lagu helin haddiiba se ay dowladda kenya aanay ka noqonin qasab markaa dee dowladda kenyada xaqu leh wixii ay ama garyaqaanadeeda nagula taliyaan ama looyarinteeda nagula taliyaan ayaanu ka yeelaynaa waddanka kenya ku saabsan ma ku tala jirtaan ama qorshaha maidinkugu jirtaa tan iyo waktigan in aad bal gudihii soomaaliya bangi aad kala qayb qaadan kartaan lacagaha oo lagu diro oo si loo helo la xisaabtan cad iyo lacagta meela ku dhaceyso in la ogaado dowladda soomaaliya cidaad kala hadasheen ama wax hadda idiin socda ma jirtaa dahabshiil baan ugu ka hadlaya dahabshiil bank saad la socotid wuu ka jiraa muqdisho wuu ka jiraa hargeysa jabuuti wuu ka jiraa bangi ahaan waa jiraan bangiyo kaloo soomaaliya leeyihiina way ka jiraan qasab soomaaliya caalamku wuxuu ka haysto ama warka uu ka helayaba bangiyada reer galbeedku ay ku go-aan qaadanayaan ma aha halkaa waan kugu celinayaa inuu dahabshiil ama shirkad kale dembi laga helay ma jirto walaal haddii dembi laga heli lahaa maanta halkanba kulama fadhiyeenba laakiin bangiyadu waxay rabaan meelay lacag ku diraan bangi ay la xisaabtamaan cid lagu ogaado lacagta cidda qaadanaysa in la ogaadaa la rabaa ayaa la leeyahay wadadaasi ma idin furanta inaad heli kartaan wadadaasi way jirtaa walaal waxa weeye lacagta iminka waan ognahay ciddaan lacagta siinay nidaamku wuu yaalaa laakiin caalamku soomaaliya waxay ka maqlayaan dhibaataday ka maqlayaan baa qayb ka ah bangiyada maraykanku mid keliya muqdisho iyo hargeysa tegey ma jiro mid keliya ogaaday sistamka ay ku shaqaynayaan ma jiro marka warka ay ka helayaan jaraa'idka ay ah qarax baa garowa ka dhacay qarax baa muqdisho ka dhacay qarax baa wadada kismaayo agteeda ka dhacay ee jaraa'idka new york times iyo washington post ay ka akhriyayaan ayaa bangiyadan maraykanka iyo jooga ay go-aan ku qaadanayaan hadda mayla fahamtay marka waxaan doonaya halkaa caddeeyo ma aha dahabshiil ama shirkad heblaa waxaa khalad sameeyey go-aanka kuma qaadanayaan waxay go-aanka ku qaadanayaan warkaa guud ee ay soomaaliya ka maqlayaan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay xalka qasab waxa weeyaan in dowladaha maraykanka kuwa regionka jooga afrikaanka kuwa soomaalida jooga weliba soomaalida maamulada kala duwani in ay ka wada shaqeeyaan sidii lacagtu ay ugu socon lahayd ayaanay marraba ka istaagi lahayn dadka masaakiinta ah ee sida sharciga la doonaya lacagtooda u helaan waad ku mahadsantahay inaad nagu soo booqatay laanta afka soomaaliga idaacadda v o a cabdirashiid aad baad u mahadsantahay Sahra.